kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda gobolka waqooyi ee Tigreeg ee dalka Ethiopia si aad ogtihiin ba dagaalkan waxa uu galay maalintii 22 waxa uu soo bilowday 4tii bisha November oo maanta 26 dagaalka ayaa waxa uu galay xilli xasaasi ah waxa axadii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu siiyay muddo 72 saacadood ah xukuumadda iyo ciidamada Tigreega si ay isugu soo dhiibaan ciidamada dawladda federaalka ee dagaalka kula jira 72 saacadood xalay ay dhamaadeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu soo saaray warqad iyo waliba warsaxaafeed uga hadlaya dagaalka Abiy Ahmed waxa uu sheegay in wajigii saddexaad oo ah kii ugu dambeeyay dagaalka uu bilowday haddaba waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka iyo sidoo kaleete wajiga saddexaad uu Abiy Ahmed ku tilmaamay inuu yahay midkii ugu dambeeyay dagaalka ma noqon doona midkii soo afjari lahaa TPLF iyo waliba ciidamada daacadda oo ah kuwa federaalka dagaalka kula jira maxaa saameynaha oo ka dhalan karta halkeesa uu hawlgalkani ku dambeyn doona arimahaas ayaynu ku eegaynaa qaybtan Jaamac Galad soo dhawow ugu horeyn horta intayna ugu galin warqadda iyo warsaxaafeedka ra'iisul wasaaraha balmaanta xageeb wax maraya dagaalka بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بشعبك الصوماليين ملك استوجوجان نهرت ماشي وحمريان كل وادي ماشي وحمريان هون نو وادي ماشي مشوق نبوقته هذه عيد هاد إنتان لحرنا ده إنه رحجيت شوك ثاني مرة يساننا ما جرت دي ما شرتو إن وحويان أنت ما بجري ثلاثة ما شروا waxa inta badan de hawlaha waxa labada dhinac iyagu ay ka hadlaan ee goobta jooga waxa sheegaan ba dadka maaratay loo sii gudbinaya ha marka markaynu u soo noqono dhinaca hawlgalkan xalay waxaa hadlay sargaal leeyahay Maxamed Taseema oo kamid ah saraakiisha ciidanka dhinacan meesha leeyahay raaya meelaheeda ku sugan saan jeclahay waxa uu ka hadlay yani ama uu sheegayba in haatan ay ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia ay ku hareeraysan yihiin magaalada Maqale ee xarunta maamulka Tigreega ayna sugayaan amarka maxaan ku yiraahdaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ra'iisul wasaare Abiy Ahmed amarkii uu bixiyay maanta bixiyay si fiican waliba 6 saacadood 12 saacadood kadib markii ay dhamaatay bahashi uu qabtay 72 saacadood markay dhamaatay 12 saacadood kadib iyo maaragtay amarkii fursada waqti loo dheerinayay TPLF ba kulli muuji waxay doonayaan wax kala haadaan marka amarkii waa bixiyay ciidanku waa ku hareeraysan yihiin magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega waxay sugayaan maaragtay amarkii sugayaan amarkiina waa la siiyay inay godadka ugu galaan oo soo qabtaan maxaan ku raadin nimankii yaan sugaynaa marka muhiimadu waa intaa iyaga waxay yiraahdeen yani ciidanku sidii waxa kala soo isla markaba godadka kala soo baxayaan baa leeyahay nimanka godadka ay qoteen meelaha ay qoteenna way ka warqabaan say iyagu inoo sheegeen marka waxaan hadda uga fadhinaa waliba caawa aan uga fadhinaa inay nimankii ay hor keenaan cadaaladda iyo maxaan ku yiraahdaa to garsoorka oo dunuubtii ay galeen maaragtay lagu qaado waa sida iyagu de maaragtay wax noogu sheegayaan markii dhinac laga fiiriyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed markii amarka uu bixiyay amarka wuxuu kamid ahaa yani inuu yiri dadkii yani goobaha dadweynaha inaan maaragtay aad waxyeelo badan loo geysanin laga taxadaro wax iskuulaadka iyo maxaan ku goobaha waxbarashada goobaha macaabida ah sida masaajidda iyo kaniisadka iyo goobaha maaragtay madaxafyada ama maaragtay goobaha dhaqanka oo kale heritage-ka la yiraahdo iyo waxyaalaha adigu maaragtay meelaha bulshadu ay isugu timaado in maaragtay aan aad iyo aad looga taxadaro oo aan lagu degdegin wax noocaas oo marka waxay taasi muujinaysaa yani ciidanka wax hortaaganba majiro inaysan jirin ba ha meesha iska galayaan oo leeyahay marka tagtaan meesha masaajidda iyo kaniisadaha iyo iska ilaaliyo oo haduminina oo maxaan ku dhahay goobaha iskuulkana caruurta ay dhaleen aan laynay yaa wax ku baran doonee maxaan ku dhaahdaa iyagana ha ka duminina marka qaab yar maaragtay ajaa'ib leh yaa maaragtay u hadlahayaano niman wixiiba tunka iyagu ku wato oo aan maaragtay wax hor istaagayaaba jirinba iyo iska dhigayaan balse waxa sida xaal noqdo waan sugaynaa waa hagaag Maqale 500,000 oo ruux inay ku nool yihiin baa la qiyaasaa rasaaluna wuxuu leeyahay goobaha dadweynaha laga leexdo macquul ma tahay iyadoo dagaal socdo oo waxba la isu reebanin in la iska ilaaliyo dadkii iyo goobihii uu rasaalu sheegay ma in la burburiyo ra'iisul wasaaruhu
yani macnaha marka waa afeefanaya miya sidii 500 kun ee meesha joogtaba waa askar hay rag iyo dumarba ilaa dadku baa loo qaybiyay hay okay marka laayo meesha jooga waa askar iyaguna way og yihiin si fiican naftarkooda kuma degdegayaan way duqeynayaan waxay isku dayeen duqeyn ku baabi'iyaan magaalada si kale oo ay ku geli karaan ma jiro horey buu hanjabeen waan ogeyn inay hanjabi lahayn magaalada waan duqeyn doonaa qaramada midoobay iyo ururadan xuquuqda aadanaha iyo kuwan qaxootiga way ka deyrinayeen marka ma laga yaabaa iyaga oo taas ka duulaya iyo fariimaha loo diray walaaca lagu muujinayo in bal ay waxoogaa isxakameeyaan oo qaab kale ku geli karaan marka waa in waxa weeye Ethiopia dadkan inay dhintaan iyo inay noolaadaan ba u daran iyada okay askartan xitaa inay meesha ku soo dhintaan baa la rabaa kuwan hadda dagaalamaya inuu ka soo noqdo la rabaa in Tigreegu liqaan baa la rabaa oo askar kale oo fresh ah dib loo qorto sababta kuwan mudana way soo shaqeeyeen wax badan way fahmayaan moogtahay marka noloshooda lama baahna marka askartan iyo Tigreegu inay isku baxaan oo isku baaba'aan oo meesha bulsho cusub ay ka soo baxdo wax loo baahan yahay weeyaan oo qorshayaasha maartay dawladana sideedaba askar dagaal gashay dib hadda ugu soo noqoto iyada ku baxaan marka inta iyaga ku bixi lahaayeen way halka ku baxaan gala baa la dhihi maqala gala baa la dhihi maqala markii gala la yiraahdana de maqali iyo inta gashay waa isla dumaysaa waa isla go'aysaa ayada hala sugin inta gacmaha taagan iyaga oo madaxa gacmaha saaraya sidii jigjiga inay soo baxaan ha ka sugin ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay Cabdiile wali shir noogu maqan moogta Addis Ababa si diyaaradii huruuda ahayd shir baad ka soo qayb meelaha ku maqay shirkii wali loo maqay marka waxaan leenahay shirka soo ma dhamaado baas way hagaag ra'iisul wasaaruhu warqadiisa wuxuu ku sheegay 72 saacadood oo uu qabtay inay jiraan TPLF maamulkooda gaar ahaan ciidamadii qaar ka faa'iiso oo kumanaan bay soo dhiibay inkastoo aysan jirin cid xaqiijin karta oo madaxda macquul ma tahay inay jiraan anoo ra'iisul wasaaraha been sheegay dhihimayne waa run soo dhiibay وكا مركا معناها فرصة كيف كمان بس سودي في السماء كمان وما كمان بولها أرمو ده ملايين اليوها يكون مليشيا أرمو ملايين أرمو ده إيش كون يلا كون يصدق كون يأفر كون سو كو يسوي لها ما طبعا كون بندلة مركا طبعا كيدرين طبعا الله من هذا يسوي ليفتي وح معناها أيالنا إنسى كله ها كوي كلا شو واحد ما دام الله بقول لك كنت كون سوي قياسي تليه عينك تشيف اوف اوبريشن كي يا شرا لا يبحي موقته marka isaguna waa maartay markii xagga la deeysan wuxuu 10 baa soo dhiibtay 10 waan dilay aad iyo tobanna waan dilay tobanna way soo dhiibtay waxa u dhigma marka taliyaha la dilay marka 20 kun waay 20 kun ma baxday Tigreegna waxay dileen taliyihii marka 230 kun baa dhawr 230 kun baa dhaha 250 baa marka meesha waxa lagu hayo waa sheeko weey waa xabashi ma lagu hayaa meesha bodo waa waxaan dilay dadkan madad xayawaan oo taagtaagan baa la soo qabqaanay kuwa soo dhiibahayay iyo 10 kun la dilahayay iyo meesha waxa weeye dagaalka ka socdaahay waxa weeye waa dagaal dhinaca afka ah kan afka ah aad u xoog badan laakiin hadii waxaan jeclaan lahayn inay maartay wax macquul ah noo sheegan isan wax walba nagu deeyay way hagaag tobanna waan dilay tobanna waa soo dhiibtay aad warqadda ra'iisul wasaaraha uu soo saaray maanta waxa ku jirtay in TPLF ay xidhaan albaabkii nabadda ugu dambeeyay isaguna albaabkii naartu furay ay okay waan gartay albaabihii naartan furaynaa biir Soomaaliya muhiimada marka de baan arkeen hadda yowkii nabad iyo naxariista soo xidhaan soo kii naaraha intuu furo ha ku wakaasa hadubto waag meesha iyadoon la kala tabarroonayn fiiri iyadoon la kala tabarroonayn qoladan isaga hadda beesha caalamka iyo wixii baa maqlahay wuxuu rabaa dagaalkan in laga gado markaan caawimo idin warsano buu yiri markaan noo soo gurmada inta kale annaga wadda isku haynayna nadaaya annaga soo kala fudud qaadayna marka muhiimada uu rabaa waxay tahay in laga gado Tigreega iyo maxaan ku leeyahay dagaalkooda iyo waxa la yiraahdo waxaasna qaata iyagana waxaan u geynaynaa kala jooga يعني فيلم مارتي نوعاس أو ير مارتي إسحايسين أو مارتي uu ku doonayo xogaa inuu magaciisa ku ilaashado ra'iisul wasaaraha dhammaan dalka Itoobiya oo maxaa wax ballan qaaday ballan qaadkii maartay yaa si fudud uga baxaydaas ku dhiba moogtahay in cadaadis xoog la saaro oo gurmad badan la keeno oo leeyahay dawladda Itoobiya gurmadkan ha qaybiso oo ha dawladayso inta dadka dili lahayd waxa filmo yar noocaas loo jeedaa laakiin meeshan awood markii la yiraahdo lama kala awood badna
janiska waa janiska wuxuu haystaa oo keliya xiriirka beesha caalamka iyo ummadii iyo oo dii ra'iisul wasaarihii dalka kuwana intii buu ka goostay cid la hadlaysa male marka iyaga haddii hawada loo furo waxa weeyaan iyaga ka anteena dheeraan lahaa waa tahay wuxuu yiri hawlgalkan waa kii saddexaad waana kii ugu dambeeyay macquul ma noqon kartaa in hawlgalku noqdo kii ugu dambeeyay ee TB Ruus afjarla waa dabadu ka furan yahay laakiin aadiya macna wuu socdaa ilaa 2040 wuu socdaa markii de weligiiba waa awal hore moogtahay maalin abaabulka ciidanka wajiga koowaad buu ahaa qabsashadii ilaa iyo adigraad iyo meelahaasna waxay ahayd wajigii labaad bay soo maaha wajiga saddexaadna waa hawlgal dabada ka furan weey iyo weligiiba ha socdo qolon lagaga saarayo ilaa iyo intii loo baahdo iyo iska soconaya weeyaan marka waxa weey meeshu waa laba qolo waxa weey waa laba qolo oo isku tabara isku awooda isku tabara isku ciidana isku taliyayaal wax walba iska yaqaan wax walba isla yaqaan wax hadda maartay ay isku seegan yihiin way is yaqaan sargaal walba sargaalka ka soo horjeeda oo garanaya magaciisa oo saddexan iyo meesha ku dhashay iyo tababarkiisa iyo xirfadda military uu leeyahay iyo waxa ka suurooba wuu garanaya marka laba qolo oo kala awood badan waxa kaliya ee xogaa Tigreega looga yar maartay gabgab leeyahay waa ciidamada cirka weey ciidamada cirka iyaga horta kaga salawaadiyay oo nafti alla lahayd oo keenay yaani albaabada kama bixi karaan si fiican halka bay ku jiraan oo diyaarad dhagax la soo tuuray unba waf ku dhaafay oo waxbay wab ka siin kadeedkaas haysta marka marka inta mooyaane inaha kale oo dhan way ka sameeyeen diyaaradda hadii diyaaraddaasi wax loo kaadiyana waa la diiran qoladan Abiy Ahmed u diray aad iyo aad dad cayd ah oo meesha aan waxba haysanin oo dadkan inuu maaragtay lacag wataan moodahay yaa meesha jooga dad baa irsaaqad u dooranba ay xabada ka dhacayso marka waxa weeyaan wax si kala maartay wax tabar iskuma dhaamaan waa tahay ugu dambeyn hawlgalkan xigay ku dambeyn doona hawlgalkan wuxuu ku dambeyn doonaa malaga yaabaa inuu ka khalaalaado xoog iyo baab ku dambeyn hawlgalkan dad waxay leeyihiin waxa bilowday hawlgalkii dhimashada ma hawlgalkan xoog iyo baab ku dambeynaya askarta meesha tagtay waxa weeye ninkan waa la sameeraysan ninkii deegaankiisa ku dagaalamaya iyo nin maxaan ku yiraahdaa to kor laga keenay oo la yiri dal iyo dad dhan baad dhacaysaa soo orod la yiri oo maxaan ku yiraahdaa to isagu doonaya maxaan ku yiraahdaa to darajo iyo inuu dalaco oo dad dhiigi ku dalaco doonaya markii waxa weeye waa isma keeni karaan saddex bilood oo dambe hawlgalkan markuu socdo ciidamada Itoobiya iyaga lafooda u kala tagi marka hawlgalkan waa hawlgal aniga ay muuqato inaysan Itoobiya ka dambeeyeen meesha hawlgalkaas ku dambeeyo Itoobiya haddii ay heshiiyaan oo inta la heshiiyo oo miiska wada hadalka la isugu yimaado wax un la isku qanciyo Ilaahay oo Itoobiya badbaada markaa haddii laakiin la heshiin waayo oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed warkiisan uu ku adkaysto aad baa loogu baahan yahay hawlgalka la xoojiyaan leenahay annaguna ka qayb qaadanaynaa waa tahay su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiiyay hal arrin aan rabaa inaan ku weydiiyo oo ku soo gabagabeynayno booliska federaalka waxay dhahaan TPLF maadaama xaaladdu ay ku adagtahay waxa laga yaabaa Mayakatra xasuuq lagu eedeeyay dhalinyarada TPLF ee Tigreega oo qowmiyadaha kale ay u geysteen mid la mid ah inay ka geystaan maqale haddii xaaladdu ku adkaato ma laga yaabaa dadka inay waxa weeye yaa u sheegay iyaga macnaha waa Mayakatrana waxay ku leeyihiin هذا human rights Ethiopia waxa gudiga xuquuqul insaanka ee gudiga Ethiopia gudiga xuquuqul insaanka ee dawladda dhexe Ethiopia yaa horta waxaan sheegay moogtahay ayaga qayb ka ah sidii xasuuqa marka ay fiirsay oo hadlayaan dadkan meesha lagu laayay Ilaahay baa garanaya cidii laysay laakiin dadka goob joogayaashii qolo waliba sida iyagu ay jeceshahay iyo hadlayaan axmaaradii goob joogaayadu waxay leedahay Tigreeg baa laayay Tigreegi iyo dadkii kale ee qowmiyadaha kale ee joogeen waxay leeyihiin militariga Ethiopia laayay ama ciidanka Ethiopia laayay ama maleeshiyada Ethiopia laayay okay tan hadda ah cidda la waxbaan leenaynaa waxbaan burburinaynaa waxbaan baabi'inaynaa leh taa un baa rabta inay wax layso kulli waa dawladda federaalka ee Ethiopia iyada un baan madaafiic haysato hadda maqaladu qaynaysa marka qofkii maqala ku dhinta ama Tigreeg ha ahaado ama Xabash ha ahaado ama wax kale ha ahaado ninkii meesha tagay ee dagaalka la aaday ka un baa dilay awal hore dadku ku noolaan Soomaa aad iyo aad marka anigu ma arko hadda Tigreegu inay ku soo jeedsanayaan shacabkii ku dhex noolaa oo dadku dad saa gun u sii ah ma aha oo
waxaa weeyaan waa boqolaal kun oo qaxooti Eritreana yaa ku dhex noolaa oo xeryahooda hadda la duqeynayay oo magaalo walba Xumayr ay deganaayeen Adigraad bay deganaayeen maqalaha dhowr kaamba ku taalo oo xero ah oo dadka Eritreanku ay ku xareysan yihiin marka ma u malaynayaan uu Axmaaraha joogto oo Axmaaraha sidan ah oo maxaan ku yiraahdaa la xasuuqaya ma war iga dagay ma Axmaaraha hadda Tigray xasuuqayaan war xasuuqi lahaayeen iyagoo dalka haysta iyo xasuuqi lahaayeen way hagaag aad u mahadsan yahay jaamac daawadayaal qodobkan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo intaan dib isku soo laaban doono adeebaha wadada ogolaado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.